madaxweyne xasan sheekh markii uu xilka la wareegay waxaa hor yaallay dhowr caqabadood oo amni argagaxso ku bulaalay baadda shacabka oo aan si aan gambasho lahayn lacag xooga kaga qaata dukaamada ku yaalla Maka al-Mukarrama ilaa xoola dhaqatada joogta mudug qawaarijta al-shabaab oo 5 sano aan wajihin dagaal oo dib ugu faafay deegaano hore loo xoreeyay iyo kuwa hor leh ciidan si weyn u kala qaybsan oo siyaasadda faraha loo geliyay kaga mashquulay shaqadoodii haddaba 2 sano kadib xaalku waa sidee qaranada Soomaaliya 2 sano kadib gabi ahaan ayay isbedeshay halkan waxaa ka muuqda maabka Soomaaliya 2022 xaalkeedu sidoo ahaa guduudka waxa uu tusaale u yahay deegaanada argagixisada ay xooga ku haysteen ay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateysay halkanna waxaa ka muuqda maabka Soomaaliya hadda 2024 xaalku sidoo yahay buluuga waxa uu tusaale u yahay deegaanada ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacbiga ay ku sugan yihiin oo ay ka xoreeyaan argagixisada waxaa isku furmay magaalada Muqdisho iyo gobolada dhexe ee dalka Muqdisho Beledweyne Muqdisho Xaradheere 215 deegaan oo ku jiray gacanta argagixisada ayaa xoroobay 5,000 oo argagixisaha ayaa lagu dilay dagaal toos ah iyo duqeymo 80% waxaa hoos u dhacay falalkii amni darrada ee caasimadda Muqdisho waxaa la tababaray lana qalabeeyay 10,000 oo ciidan ah oo lagu qoray dhammaan gobolada dalka guulaha amni ee la gaaray inta kuma eka su'aasha ayaa waxay tahay sidee horumaradaas baaxadda leh ay ku suuro galeen muddo 2 sano ah madaxweyne xasan sheekh oo garwaaqsan muhiimadda asaasiga ah ee amniga iyo xasiloonida ay u leeyihiin horumar kasta oo qaran oo macno leh iyo xaqiijinta Soomaaliya xasiloon oo ka caagan argagixisada ayaa dulbadiiba qaaday tallaabooyin dhiigjoojin ah iyo kuwa ku salaysan istiraatiijiyado mustaqbalka dhow iyo midda fog qorshaha amniga qaranka ee lagu erebtirayo argagixisada ayaa la hirgeliyay dawladdu waxa ay qaaday dagaal 3 jiha ka kooban dagaal military dagaal dhaqaale iyo dagaal fikirka guraan ee qawaarijta lagu erebtirayo madaxweynaha ayaa ciidamada xooga dalka u jiheeyay shaqadoodii qaran waxaana iyagoo kaashanaya dadka Soomaaliyeed ee wajahin cadawga waxaa kacay shacabka oo garab iyo gaashaan ka helay dawladooda Hiiraan oo hormuud u ah halganka socda waxaa ka dhacay howlgallo bulshada kaalin weyn ay ku lahayd ciidamadii ka soo dhaqaaqay waqooyiga Hiiraan aaga Matabaan maanta waxa ay ka howlgalayaan xuduudka Shabeellaha Dhexe deegaanada la xoreeyay ee Hiiraan waxaa ka mid ah Moqokori oo qawaarijtu ay ku jabeen dhowr goor Isooman oo haliyay ay u horeen dhigooda Shabeellaha Dhexe ciidanka degmada Cadale ka duulay waxa uu waqooyi u dhaafay xuduudka Galgaduud waxa isku furmay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan 29 deegaan oo ku jirto degmada qadiimiga ah ee Aadan Yabaal ayaa qawaarijta laga farmoojiyay mudug waxa xoroobay Xaradheere oo 15 sano qawaarijtu ay haysatay iyo deegaano kale oo ka mid ah Galgaduud 4 furmood ayuu cadowgu wajahayaa dhanka bari iyo koonfur waxa ciidamadu joogaan dheer iyo Masagawaay oo laga xoreeyay qawaarijta waxa jiha kasta ka xiga ciidamada xooga dalka oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh inta ay howlgallada socdeen waxa uu hormuud u ahaa dhiirigelinta ciidanka naftood hooyaasha ah waxa uu gaaray furmaha dagaalka iyo deegaanada la xoreeyay inaan baxdo imaado waa farxad nuur dagmaanta ay ugu horeysay masaajid cali gaduud ahay waa ognahay Xaradheere soo imaanayna duulaanadan iyo howlgalladan waxay banaanka soo dhigeen taagdarrada iyo fuleynimada qawaarijta waxa goobaha dagaalka laga diiwaan geliyay dhacdooyin argagax leh waxa lagu arkay deegaanada la xoreeyay raadka ficillo diinkeena iyo dhaqanka suuban ka fog dagaalka uma dhaxeeyo kaliya dawladda iyo qawaarijta ee waa mid u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed iyo qawaarijta banaystay dhigooda internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah